Halkan waa Himilo TV. Soo dhawow daawade. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka ku saabsan xildhibaano in ka badan 20 sano xildhibaano ahaa. Muddo ka badan 20 sano ayaa laga joogaa heshiiskii lagu dhisay hay'adaha dawladda Soomaaliya kadib burburkii dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay ee dhacday 1991. Heshiis ka dhacay magaalada Carte ee dalka Djibouti ayaa lagu dhisay baarlamaankii ugu horreeyay kaasoo 4 sanaba mar la bedelo. Inkastoo dhowr jeer ay isbedeleen tirada kuraasta baarlamaanka haddana waxaa jira xildhibaano tan iyo Carte aan marnaba ka bixin baarlamaanka oo lagu dhisay nidaamka 4.5 ee loo qaybiyey beelaha Soomaalida. Ma sahlana inaad ugu yaraan 4 xilli aad ku soo laabato kursigaaga baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo xulo ama lagu doorto nidaamka beelaha ee 4.5. Xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim waxa uu 20 sano ka hor ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay shirkii dib u heshiisiinta ee Carte balse nasiibku wuxuu siiyey inuu xildhibaan ka noqdo baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee wakhtigaasi Carte lagu dhisay tan iyo wakhtigaas kama bixin golaha. Xildhibaan Cismaan wuxuu ku micneeyey joogitaankiisa baarlamaanka in dadkiisu ku qanacsanaayeen matalaatiisa. Markaan dib u noqdo aniga ma ahayn dadka bannaanka aaday markii burburku dhacay, dadkaan ku dhex jiray, waxaana aaday deegaankaygii rasmiga ahaa ee Luuq iyo Doolow. Markaas dagaaladii sokeeye dhibaatadii ay abuureen oday baan ahaa, dadkii iyo nabadayntii Gedo iyo dib u heshiisiintii dadkii isu keenay ayaan ku jiray, meelba ugama dhex bixin. Marka dadkayga ayaan ku dhex jiray, iyaga ayaa mar kasta ii garanayay inaan anigu baarlamaanka ku matalo ayuu yidhi xildhibaan Libaax. Khadiijo Maxamed Diiriye oo xildhibaannimada ka sakow ayba yar tahay inay ka maqnaato xukuumadihii isbedbedelayay ee 20 sano ee la soo dhaafay jiray. Xildhibaan Khadiijo Diiriye waxay u aragtaa in sababta ay u soo laalaabato ay tahay in beesheedu ku qanceen isla markaana ay jirto doonista Rabbi. Horta waxaan leeyahay haddaan Soomaali nahay ummad Muslim ah, ayaan nahay, bixinta Alle ayaa iska leh, ciddii uu doono ayuu mansab siiyaa, ciddii uu doonana ma siiyo, ayay tiri. Waxay intaa ku dartay, bahasha iyadaa i barkanaysay oo hidde iiga timid, haween ahaan keliya ma ahayne reer ahaan. Reerkayga waa isoo hormariyey muddadii burbur ku jiray oo kursigayga saxan dahab ayaa la soo saaray. 30 sano ee ka horaysayna kacaankii eedaday Faadumo Cumar Xaashi ayaa ku jirtay, marka bahal i bargaranaysana waa timid, nasiibku waa i saaciday, bixinta Allana waa meesheeda. Haddaba maxay tahay sababta ee xildhibaanadan ee muddada dheer ugu mid yihiin golaha baarlamaanka Soomaaliya? Dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya una soo joogay sida ay isu badbedelayeen baarlamaanada Soomaaliya 20 sano ee la soo dhaafay, ayaa rumaysan in xildhibaanadan soo noqnoqda ay fahamkooda habka wax loo xulo iyo galaangalkooda hadba madaxda joogta ka heleen fursadaha ay ku soo laablaabtaan. Arrinka kale ayaa lagu sheegay in ay tahay in beelaha ee ku matalaan kuraasta ay yihiin beelo aan sida siyaasadda Soomaaliya ugu tarax tegin isla markaan aysan kala kulmin loolan adag kuraasta marka loo eego beelaha kale.